بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالمك waxaa la dhahaa waxa ugu badan aadkii aad kula daawashada og yahay waa beenta. Cadeynteedan ku hayaa marka aan ku sheegan waa diyaabi doontaa oo waxa leedahay oo aniga naftiga beentan daawadaaye. Dabcan inta aanan arintan laga yaabo badankiin aad aragteen xabsigan sidnaaya iyo waxa ka socda aan idin sheegin sidaas oo kale bal hal mar qodobkan aan dhahay aan idin la wadaago. فيلم أنت ما دعوتها أما داون جرتي بركورن قصة فيلم كاسي موحي كوسا بسنت هاي بين يعني أتورها للدلايا وصون ورانا يا أما أتورها ما وقت منايب أنت الصعيد من الدلايا أسوي صوت تاجية بقول حبة أقول فنايا وصوص صعدا دين عائي هوليوود كتك دين عائي بوليوود كتك يعني دين عائي أمريكان كي فيلمات إسوس صاران وهرنا كهلا يا dhinacan kale hindida iyo Bollywood ayagana dhahan dabcan sidaas oo kale tag waxaad arkaysaa rasaas gacan lagu qabanayo madaafiic soo socota oo sida loo qabanayo iyo qisooyinka dabcan beenta hela jilo waa lacagta ugu badan caalamka shirkadaha sameeyay kamid ka yihiin shirkadaha filmaanta hadda taqaanaan Hollywood marka waxa ay iibiyaan waa maxay ma xaqiiqa filmaanta ay jiraan waa maxay waa been وانا بنته عالمك waxa ugu badan ay iibsamayaan almuhim sida aad ujeedada maxaan ula jeedaa waxyaalaha qaarkiisa marka filmaantaasi noocaas oo kale waxa laga daawan jiray waxyaalo khiyaali ah oo maskaxda aan galaynin laakiin ka war hadaan ku dhaw waxaan ku wadaa arinta noocaas oo kale ah oo barun ah caalamka hadeertan aan ku noolnahayna ka dhacaysa aad yaabayso waxana ku saabsan tahay xabsigan sijnaaya ama sidnaaya dacfur كاميرا الجزيرة سيدا waxay u gashay kaamirooyin kala duwan oo tiro badan waxay galeen xabsiga marka albaabada badan oo kamid ka xabsiga yani furayaashooda lama hayo way luusan yihiin oo dad badan ayaa hadda la raadinaya leeyahay 100 kun bixinaya ay kada yani taan u tagi doona bidin Allah taala wax lagu qasla ma ahan haddana wax lagu qaslo way tahay almuhim albaabada marka kaamirada saa ula raacaan waxa dhaxaysa albaabada in afun daaqada yar ee dadka xabsiga ku jira laga fiirsado ay kaamirada u gelinayaan ilaan xabsi walba ama qol walba inta soo umad aha ku jirta marka waxay u barteen dadkan oo lagu cadaabi jiray waardiyaasha iyo dadka wax ciqaaba ee xabsiga ka shaqeeya ku ciqaabi jireen qolka kale nooc marka kaamina markay saa u gasho waxay u maleynayaan dadka maxaabiista masaakiinta waxay u maleynayaan kuwii cadaabi jiray ee waardiyaasha xabsiga ilaa ma oga meeshii inuu furasho ka dhacday ma oga lama socdaan Soomaa kaamina marka saa loogu jeediyay marka qaarkood marka sida eeyga kale iska ayagoo badan yani qaarkooda marka saaka meel lagu jeediyo yani ama meesha saa loo fiiriyo ay arkaan waardiyaasha umaleeyaane markaas is dul fuulayaan ilaan waa wixii dabcan lagu sameyn jiray la dhihi jiray hadii aad aragtaan in la idin soo fiiriyo waa inaad saasa sameeysaa haddaadan sameeyna yaa weelakum balaa idin ku dhacaysa wargelin muhiima ma jeceshahay waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan tegi karin xaramka barakeysan in loo gudo acmaasha cumrada haddii aad danaynayso waxaan kuu diyaarinay culimo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakeysan ee Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara kuwaas oo u gudaya cumrada waalidkaaga inta lagu gudo jiro gudashada acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba fursadan qaaliga uga faa'iiday waalidkaaga wixii faahfaahintaas dheeraad ah waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda ama naga soo wac eber 252 shirkadda At-Taqwa Hajj and Umrah waa hoyga rumaynta riyadaada xajka iyo cumrada adiga iyo waalidkaagaba ku baro kuna xifti barashada quraanka kariimka muddo aad u kooban oo ku soo biir fasalada cusub oo qaadanayo dugsiga Nasruddin Islamic Online oo kamid ah dugsiyada faca ballaaran ee ubadka qurbaha ku nool iyo qof kasta oo doonaya inuu barto diintiisa Islaamka oo hab online uga baran karo meel kasta oo dunida joogo iyo saacad kasta ay u tahayba waxaanad ku baranaysaa xiftiga quraanka kariimka higaada afka Carabiga tajwiidka quraanka adkaarta Islaamka salaada saxista iyo waliba tarbiyada sanad Islaamka hakaab saamin in kow ka noqoto ardayda laga diiwaangelinaya bishan dugsiga Nasruddin Islamic Online waxana casharadu ay kugu soo gaareen hab online maqal iyo muuqaal wixii isdiiwaangelinaya waxaad naga soo wacaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda balanteena waa Nasruddin Islamic Online ku soo dhawow macadka Tibyaan Online oo aad si fogaan arag ah uga baran doonto Qur'aanka Kariimka ah iyo culumtiisa adiga oo gurigaaga jooga dal iyo dibadba
ayna diyaar kuugu yihiin macallimiin khibrad sare u leh baridda qur'aanka kariimka ah iyo barbaarinta carruurta. waxaa macadka tibyaan online kuugu diyaar ah xifdinta qur'aanka kariimka ah, tasxiixa qur'aanka kariimka ah, barashada higaada afka carabiga iyo weliba barashada culumta tajwiidka. haddaba si aad isku diiwaan geliso faahfaahin dheeraad ahna u hesho, la xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda. almuhim arinta iga nixisa marka waxay ahayd xabsigiyaa sidaan kaamirada loo geliyay markaasa afka u qalqaada macnaha yani ilaan uu la qabsaday oo kaa uu la qabsaday oo kaa uu la qabsaday oo kaa uu la qabsaday yani caqligaa tagay way waasheen sida eeyahu kale dabcan isaga yeeraan. almuhim xabsigaa la jabiyay maanta oo dhan marka dadku waxa loo maleynaya qaarkood inay jiritaan ahaan cabsi ay u geynayso soo maaha, qaarkood way la qabtay memba 10 sano 15 sano 20 sano sidaasay ugu jireen caqligii kaamilkiisa tagay ilaa ibn aadam waa la waali karaa dad kala duwan marka lama daaban karo. halkan bal ila fiiriya ninkan waa tusaale wax ku xiran ma lahan gacantiisa habeerta wax kuma xirna wuxuu u maleeyaa in xarigii katinadii ay ku xiranta weli u maleeyaa bal kan ma fiirsada hal mar waa isla isaga dabcan indhihiisa waa markii laga daadiciyay war wax kuma xirna asagana aad arkaysaan waa isla isaga u fiirso quruxdiisa hore soo ahaa indhihiisa aad u fiirso bashaar alla magaciisa ذاتنا هذا الشاب هو نفسه هذا الله لا يوفق اللي كان عندنا ولا يوفق كل حد قرب عليه. وفيرسا marka waa markii almuhim la soo yani la soo hadlayo adiga la soo dhaadiciyo war gacmaha kama xidhin la dhahayaan u fiirso wax ku xiran xarig ah ma lahan wuu naxsan yahay wuxuu u maleeyaa waa laga furay dogow wuu la qabsaday yani jirkii ayaa sidaa u dhigay u istaagay. arinta kale oo aan dhihi karo dabcan ama aan dhahadhe wax lagu qasdo ma ahan waan wax lagu qasdan way tahay si kale aan haddaan u dhigo waxay tahay waxa dhacay xabsigii dabcan meelo badan oo dhulka hoostiisa ah ay maxaabiis ku jiraan lagu tilmaamay boqolaal inay yihiin cid gaari karta ee cid taqaana xataa ma laha bal video insha Allah taala markaan inuu wadaagi doonaaye aad arkayso tunelada siday hadda korna shalay ma aha videogii shalay ma kaga hadlay sida caarcaarada guryaheeda oo kale dabcan ah. almuhim hoos intaasoo dabaq ayay jiraan albaab laga gala xataa lama yaqaano. albaabadii qaar badan oo ka mid ah qofilo waxaa ku dhegan madaxaada ka weyn oo sidaa dabcan la jabin waayey qaarkood xabadaha lagu dhufto ayaa laga baqay xataa dadka inay gaaraan. almuhim waxaa dhacda marka waa maxay suuriyiintii waxay dhaheen dhammaantooda yani kuwii dibadda joogay kuwii gudaha joogay culimadooda indheergaradkooda kulli waxay leeyihin please dadkii ka shaqayn jiray hadda u fiirsa qisada noocan dadkii ka shaqayn jirayo war waa idin cafiye wax idinkuma taabanayo please kaalaya fadlan furo xabsiyada ila furiyaash idinka haayee ugu marka la waayay dadkaasi oo sida loogu yeeray oo la waayay ayaa waxa leeyahay marka $100,000 ayaa bal idinku darayaa yani lacag idin siinaya kaalaya fadlan furfura baaladan oo furiyaashi wixii aad haysan la imaada. طيب maxay u cararayaan marka ma taqaanaa way imaan lahaayeen hadda 100,000 cidma diidaysee laakiin hadday yimaadaan waa la cafiyo ugu haday laakiin dadkii ay dhibaateen jireen sidii hadda aad arkayseen ay u galeen iyo kuwa badan oo badan ayaa waxay garan doonaan mar alla markay saa u furaan yani warhaba weeyaan waa xasan waa axmed waa faarax oo kale saas oo kale yani way garan doonaan hadday gartaan marka dadkan hadday cafiyeen kuwan kale waxaa laga inay cunaanba yani marka way baqayaan baxsad weeyaan. almuhim hal mar videogan ila daawada u fiirsada videogan macnaha waxaa loo qodayaa qayla la maqlaaya halkaan aan ku jirnaa war meel laga galan malaha acuudu billahi min shaytaan rajim hal mar ila fiiriya sawirkan sida u dhisan yahay weeyaan bal u fiirsada calaamadaas si fiican u fiirso qaabkan u dhisan yahay ayaa intaasoo dabaq hoos ay u jiraan qol walbana ama qolalka hoose midba midka kasii hooseeyo ayuu kasii yar yahay. ka waran qol intan ah tusaale ahaan inay 3 qof 4 qof 5 qof 10 qof ay degan yihiin intaan weeyaan macnaha
بلعن ولا جيدا عفوا بلعن ولا جيدا مركا halkaan shan qof degan marka ma seexan karaan seexasho ma jirto fadhi ma jiro waxaan dhihi karaa taqriiban istaagnaan ahaan sidaan ahaan ay xilligooda ku dhamaysanayaan marka noloshaasay ku jireen waxaa isdhehaysaa oo waxa sidan ku galaayay ibn aadan ma ahan miya bal hal mar videogan codka bisa intu saaya codka yani maan xogaaya fiiriya maan kasoo leexinayaa قاسية جدا وميلاد بدن قرالي ku jiraan way dul saaran yihiin أول وسيلة تصور هذه الجثث الجزيرة markii ugu horeysay dhashay تشعر لها الأبدان jirkan ku حقيقة qod badan jira u leeyahay على ما يبدو jirkan ku dabaaxinaya مناظر مؤذية جدا هناك جثث يبدو عليها حديث عنها قررها أصحابها waana meelad cusub qaarkood dhiig wax tooqayn yahay ayaama isbuuciyo magacyo ku qorqoran قالين نقول هذا مساء صوب من دقوا مركب يعني ويكتور عيان مثل هذا الآذان المهم قرال ويان طبعا نعتذر عن شدة هذه المناظر هذه كما دخلت كما قلت نحن أول هي كسر بحقول هذا السعودان المكان هنا أيضا هناك جثتان كنا سدح لما ولا لكن سدح ويان طبعا كوجسة نعم المهم أوكي نعم 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 بحقو قياسي ساعة بل لينكي مركا أرين كلا إنسو وضع oo jariimadan kamid laakiin hal mar ay dambeysay حتى وان إلا ويسام كسو قرابة حتى قرنين يعني المهم سيد وحو سعودان مركات فيرسو نينكي بشارها كهر طبعا انتان لعيرسن ايا لو وريست هادو كهر ارنتان لغا وريستي waxaa jira xabsiyo dad badan ay ka soo baxeen oo dhibaataad ku samaysan kada bal hadalkiisa sawir ma haysaa hadda waa waraysi hadda kor la yeeshay idsoo leeyahay cadeynta kaysid ninkan wariyaha Have you verified who are those? ma cadayso leeyahay You should tell me because you have it, because you mentioned it in front of your audience. There's a number of you have to photos. convince your audience. You cannot mention such a picture without verifying who are those and where and وإن كده just to put it in حلو waxaas anaga ma sameeyno or they've been killed by the Syrian The soldiers. woman who filed the lawsuit, the Syrian woman who filed the lawsuit, says she saw her brother in those photos. gabadha sawirka noo keento leeyahay walaalkeeda arintan lagu sameeyay Bashar Assad hadalkiisa muxuu leeyahay At the end, these are allegations. We have to talk about concrete evidence at the end. at the end يعني أرنتن واسكا allegation يعني وآد يعني iyo معناها qof wuxuu sheegtay waxaan rabnaa يعني caddeyn rasmi aan rabnaa way kiraya hadda la qabtay macnaha la qabtay waxaan ula jeedaa caddeymihii waa kuwana ayagoo tiro badan oo boqolaal arrintan intaan Suuriya arrinteeda ku jirna hal mar bal ila fiiriya waxaa la helay macnaha sijillaad ama dokumentiyo oo tiro badan dokumentiga waxaa ku qoran waxaa magacyada ardayda jaamacadda dhigta jaamacadda waxaa la dhihi jiray jaamacatul bacth ayaa la dhihi jiray hortii Khalid bin Walid dabcan loo bixiyay markii dambe almuhim dokumentiga waxaa ku qoran waa la socoshada ardayda caqiidada salafiga xambaarsan ee jaamacadda dhigta yani ardaydaasi magacyadooda iyo afaarahooda ayaa ku qoran saasa loola socdaa nidaamkaasa ula socdaa markaas midkuu rabo ama miduu rabo ka soo baxsadaa sida loo cadaado ama kada ay wixii la midka dhinaca kale ilaan Suuriyiin badan Xamaas u careysan yihiin waa tay shalay tiri arintan waan soo dhaweynaa kada ay wixii la midka qaar markuu xilay war naga taga idin kama rabno inaad soo dhaweysaan soo tad nidaamka aad la jirsateen wixii la mid almuhim xaaladaas waxaan hadda faahfaahin karna ma ahan oo yani waxay u baahnanaysaa maxaa ku kalifay kada ilaa meeshii degnaan jireen Xamaas kadib markii kacdoonkii uu dhacay waa tii ay ka soo horjeesteen kadibna markay arkeen macnaha Bashar uu haysto waa tii adiga almuhim yani iska raali gelin oo kale iska dheh maxay qof iska maskiin waad garan kartaa hadba cidii raysa ayuu la jiraaya maskiin ma ahan dadkan awood leh ayaa sida xataa iska طيب halkaas naga tagay Israa'iil oo wali gudaha Suuriya sida ugu soo qulqulaysa dhinaca ay qunaytay ka soo galeen dhowr kilomitir almuhim waan arki doonaa waxa dhaca ayaamaha dhan way soo galayeen waliba soo galid way jirtaa yani waxay isku dayeen ayaga inay aagagaas xirtaan kulli lama yaqaan sababta iyo ujeedada ay leeyihiin inkastoo ay ku tilmaameen yani ma rabno qolooyinkan inay noo soo gudbaan iyo wixii la midka dhinaca kale Turkida ayagana sidaas oo kale sida Israa'iil waxay u boogsiinaysaa ayagana u boogsiinayaan macnaha PKK qoladii la dhahay ee Kurdiyiinta ahayd maadaama xuduudooda eriyada ay qabsadeen Turkidana duqeyn ay ku bilaabeen si almuhim ay isaga leexiyaan ama isaga sikiyaan saas oo kale intaas aan ku soo koobaya akhbaarta Suuriya tiraday ka badatay ajaa'ib midba mideeda ka sii daran xarigo oo hadee bismillah oo yani lagu daldalay dadka oo waxa la xiray hadda malaajiin
qaarkood dabcan la isticmaalay oo dhiigag leh qaarkood oo safan aad u marayso yani kawaan almuhim nacam waxaa lagu tilmaamay kawaanka ibni aadanka bismillahi raxmaan raxiim almuhim waxaan sheega oo tiro badan ayaa jire intaasaan kusoo koobayaa inta aan video kale iska arkayna biidnillahi taala asalaamu calaykum waraxmatuhu wabarakaatu wargelin muhiima ma jeceshaha waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan tegi karin xaramka barakaysan in loo gudo acmaasha cumrada haddii aad danaynayso waxaan kuu diyaarinay culimo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyo Madiinatul Munawwara kuwaas oo u gudaya cumrada waalidkaaga inta lagu gudo jiro gudashada acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba fursadan qaaliga uga faa'iiday waalidkaaga wixii faahfaahintaas dheeraad ah waxaa nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada kaaga muuqda ama naga soo wac eber 252 shirkadda At-Taqwa Hajj and Umrah waa hoyga rumaynta riyadaada xajka iyo cumrada adiga iyo waalidkaagaba ku baro kuna xifti barashada quraanka kariimka muddo aad u kooban oo ku soo biir fasalada cusub oo qaadanayo dugsiga Nasruddin Islamic Online oo kamid ah dugsiyada faca ballaaran ee ubadka qurbaha ku nool iyo qof kasta oo doonaya inuu barto diintiisa Islaamka oo hab online uga baran karo meel kasta oo dunida joogo iyo saacad kasta ay u tahayba waxaanad ku baranaysaa xiftiga quraanka kariimka higaada afka Carabiga tajwiidka quraanka adkaarta Islaamka salaada iyo saxista iyo waliba tarbiyada san Islaamka hakaab saamin in kow ka noqoto ardayda laga diiwaan gelinaya bishan dugsiga Nasruddin Islamic Online waxana casharadu ay kugu soo gaareen hab online maqal iyo muuqaal wixii isdiiwaan gelina waxaad naga soo wacaysaa taleefanada shaashada kaaga muuqda balanteena waa Nasruddin Islamic Online ku soo dhawow macadka Tibyaan Online oo aad si fogaan arag ah uga baran doonto Qur'aanka Kariimka ah iyo culumtiisa adiga oo gurigaaga jooga dal iyo dibadba ayna diyaar kuugu yihiin macallimiin khibrad sare u leh baridda Qur'aanka Kariimka ah iyo barbaarinta carruurta waxa macadka Tibyaan Online kuugu diyaar ah xifdinta Qur'aanka Kariimka ah tasxiixa Qur'aanka Kariimka ah barashada higaada afka Carabiga iyo waliba barashada culumta tajwiidka haddaba si aad isku diiwaan geliso faahfaahin dheeraad ahna u hesho la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda